Asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada caawiya ciyaaraha maxaa laga yiray kulankii xalay ee Cristiano Ronaldo oo ku gaaray gooshiisa 901 uu ku gaaray iyo xilli benchiga macnaha kursiga keedka lagu soo bilaabay maxaa laga yiray iyo suuqa kala iibsiga kooxaha Manchester United iyo Manchester City iyo Arsenal iyo kooxo kale. ugu horeyn saaxiibayaal nooca cimaamada subscribe like iyo share. Scott McTominay ayaa u dhaliyay goosh 7 daqiiqo markay mareysay oo ka yaabsaday Cristiano Ronaldo iyo kooxdiisa, balse waa laga daba keenin mid kalena oo loogu daray. Ninkan Scott McTominay Manchester United way iska iibisay, Napoli ayaa ku wareejisay. Scott McTominay xulkiisa wuxuu dhaliyay 17 gool intuu uu dhaliyay qaramada uu ciyaaray. Marka xalay wuxuu ka yaabsaday xitaa Bruno Fernandes oo xilli ee dhalashadiisa ay ku soo aadaneyd. Marka Cristiano Ronaldo waxaa isagana keedka u fadhiyay ilaa iyo 46 daqiiqo ayuu uu keedka u fadhiyay. Xitaa waa markii labaad ee benchiga macnaha keedka lagu soo bilaabay. Xitaa macalinkiisa ayaa la wareystay, wuxuu dhahay Martinez mar uu wareysi uu siiyay wuxuu dhahay ninkan waxaa loo baahan yahay in lana siiyo macnaha uuna siinya u qaato si macnaha kulamada kalena uu si asoo firfircoona uu dhaliyo. Ninkan CR7 kan xilli markuu u gaaray 30 da'da markii ay 30 jirka macnaha wuxuu ka wanaagsan yahay ciyaartooy fara badan haday noqoto sida Neymar iyo ciyaartooy kale. Wuxuu dhaliyay ninkan xilli uu da'dan 30 jirka uu macnaha da'dan 30 jirka uu ku jiro. Wuxuu dhaliyay 438 gool ayuuna dhaliyay, 98 waa uu caawiyay xilli uu markaas 519 ciyaar u ciyaaray. CR7 markii keedka lagu soo bilaabay oo macnaha ilaa xoogaa dadka waxay isdhaayeen ninkan macnaha ma ka taashaa ma ka jijiiftaa waa lagu camiran rabay, balse jamaahirta Messi xitaa ninkan gabar usoo dhigteen macnaha ninkan waa ka jifta camal ay isdhaayeen. Ninka markii la soo geliyay ciyaartii waa uu bedelay markay ahaaday adiga 88 daqiiqo ayuu kaga yaabsaday gool oo cajiib uu ka helay saaxiibkiisa. Marka gooshaasi waxay ahaaday gooshii 901. marka ninkan mar hadiiba uu boqolaad uu ilaa 1000 uu rabo in uu gaaro macnaha in macnaha ay u furantay xalay gooshaasi ay ka dhiganteed ninka in uu gaarsiin karo ilaa iyo World Cup. Marka ninkan reer Portugiiska ee Al Nassr oo ciyaara xitaa World Cup-ka inuu ciyaari karo ayuu macnaha u sheegay. Kaliya wuxuu dhahay aniga Al Nassr waxaan ku sugayaa World Cup inaan ciyaaro sababtoo ah ninkan Messi ayaa dhibayso arrinka Messi ayaa World Cup qaaday camal. Marka ninkan caqli ayuu leeyahay hadii uu Premier League iyo Europe uu macnaha u joogi lahaa saacadaha markii oo xilliyada camal da'da markay soo gabagaboodo benchiga la iskaga qaban lahaa. Laakiin Sacuudi wuxuu ka helay ninkan boos marnaba macnaha aan keed la gelin karin. Marka sidaas ayuu World Cup ku ciyaari doonaa. Dhanka kale Spanish ayaa 4-1 ku garaacday Switzerland xilli uu Lamine Yamal ninka wacdarada ka dhigay adduunka uu caawiyay Ferran Torres uu ku caawiyay gool khatar ah. Marka Spanish sanadkan way xooganta xitaa waxaa laga yaabaa World Cup-ka 2026 xitaa inay qaadi karto. waxay isku darsatay Euro isku darsatay macnaha meel looga har xitaa malahan xitaa kuwa da'yarta xitaa. Dhanka kalena Croatia iyadana 1-0 ku garaacday xilli Modric uu galayo 40 uu galgalayo iyo Cristiano waa isku mid. Marka gool ayuu dhaliyay xalay Croatia
walow Croatia kulankii hore ee Cristiano la ciyaaray la garaacay haddana ay badisay. Dhanka kalena laacibka Manchester United Joshua Zirkzee ayaa isagana markiisa ugu horeysa safashada xulkiisa qaranka ee Netherlands u saftay ayuu gool ku bilaabday, gool ku furtay xilli xitaa Manchester United markii ugu horeysa ee uu u saftana gool u dhaliyay. Ninkan waa goal bitter goal weeyaan. Dhanka kalena suuqa kala iibsi markaa fiirino Victor Osimhen ayaa weli ku cadcad in uu ku biiri karo Chelsea maadaama ninkan lacagta qiimaha uu suuqa ku joogo oo laga dhimay. Dhanka kalena Real Madrid ayaa hogaaminaysa dhanka ugu dadka macnaha oo social media soo raaca ayaa ugu awood badan, waxaana ku xigtaa waxa weeyaan Barcelona iyo Manchester United. Dhanka kalena Manchester City ayaa Pep Guardiola siini doonta lacag aad iyo aad u fara badan, gaaraysa 100 milyan si uu ugu soo raadsado ciyaartooy kale lamid ah Haaland, maadaama Haaland uu kusoo haray keligiisa uu yahay, maadaama iska fasaxeen Julian Alvarez Atletico Madrid ku biiray. Marka macalinka wuxuu dhahay waxaan sugaya tartamo dheer, xitaa Champions League waa uu dheeraada ayuu dhahay. Waxaa la ciyaaraya kulankiisa knockout-ka January iyo meelahaas ayaa la ciyaari doona. Marka wuxuu dhahay waxaan u baahanahay weerar kale oo kana siiya Haaland. Marka Manchester City way soo caga dhigatay maadaama waxay rabtaa in koobkan shanaad Premier League ay ku guuleysato ayay doonaysaa. Marka wuxuu dhahay anaga suuqeena galna weeyaan, Haaland kaligiis kuma fiirsan karno, macnaha waa u dhaawacmi karaa ama uu seegi karaa, waa in lana siiya macnaha joogteen in lana laga dhigan. Marka Manchester City 100 milyan ayay siini doontaa Pep Guardiola si uu suuq. Dhanka kalena Manchester United ayaa doonaysa in ay la soo saxiixato Joshua waxaan jeclahay Manchester Musiala oo ciyaara Bayern Munich, waxaan ka fiirsan jiray marka waxay u isticmaali doonaan sida ugu soo dabi lahaayeen Joshua Zirkzee maadaama ay saaxiibo ay yihiin ninkaas Jamal Musiala. Marka Manchester United xilli xitaa waxay doonaysay ciyaartooy kale eena ku jirta suuqa. Dhanka kalena Victor Osimhen Nigerian-kan ayaa noqday ninkii labaad ee ugu goolasha badan xulkiisa qaranka Nigeria.